waxaan ognahay ahmiyadda booliis uu leeyahay meeshuu rabo ha joogo. hay-addan waxay udub dhaxaad u tahay bulshooyinka casriga ee adduunka ku nool noloshooda qaybaheeda kala duwan oo dhan ayay halbowle ama udub dhaxaad u yihiin. meel kaste oo hay-ad dowladeed ay ka shaqayso waxay links la leedahay toos ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed. marka waa ciidan la-aantiis aysan hay-adaha dowladdu ay adag tahay inay shaqeeyaan. sida adduunka oo dhanna ay ka tahay waa sidaas. ama horumar ha noqoto xataa amniga ka sokow, arrimaha bulshada, arrimaha horumarka, arrimaha dhaqaalaha, infrastructureska, meel aanan links toosa kala lahayn oo aan boolisku aysan base u ahayn ma jirto. sidaa darteed waxaa la oran karaa waa qalbiga ama wadnaha ummadda. haddii uu qalbigu xumaadana jirka inta kale o dhan way xumaanaysa. haddii uu fiicnaadana inta kale o dhan way fiicnaanaysa. marka booliisku haddii uu fiicnaadana waddanku wuu fiicnaanaya. haddii booliisku xumaadana waddanku wuu xumaanaya. macnaha sidaas ahmiyadda intaas leeg ay booliiska ama hay-addani ay u leedahay qaranka. dalkeenu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ka duwan 3 bilood ka hor siduu ahaa ka bedelan yahay. waxaan ku jirnaa xaalad dagaal. dalku wuxuu galay dagaal. mar haddii dagaal lagu jirana dee idinkaa yaqaanaa dhaqanka dagaalka uu leeyahay. waxa ugu horeeya oo la rabo waxaa waaye waa isbedel guud. isbedel shaksi ma aha oo qof lagu bedelay macnaheedu ma aha. laakiin waxaa waaye behaviorkii dhaqankii dadka, hadday tahay bulshada caadiga ee shacabka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda oo ay kow ka yihiin ciidamada amnigu, waxaa laga rabaa isbedel madaxa maskaxda ah iyo isbedel shaqada ah iyo isbedel mas-uuliyadda la isa saarayo intay leeg tahay isbedel adkaysiga. kulli isbedel baa la rabaa oo dabiica dacal ah ayaa la rabaa. saacadaha la shaqayn jiray sidii way ka ma noqon karaan. nasashadii faraha badnayd iyo intii la heli jiray lama helayo. dulqaadku intuu ka badnaan doonaa. sabirku intuu ka badnaan doonaa. isdhuudhuujiska iyo isla xisaabtanku intay way ka badnaan doontaa. hufnaanta intii way ka badnaan doontaa. marka sideedaba waxaan rabnaa isbedel rasmi ah. shacabku inuu ku qanco isbedelka sidii loo dhaqmi jiray si aan ahayn in loo dhaqmo. marka hay-adaha dowladda oo dhan ama shibid ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaan, waxaa la rabaa isbedel guud ayaa laga rabaa dhammaanteen. ciidamada boolisku ama hay-adda runtii aadka u weyn ee sharafta leh, waxaan ka rabnaa isbedelkaas inuu si xoog looga muuqdo. dagaal baan ku jirnaa. cadow aada muddo dheer isa soo hayseen, laakiin laga yaabo marar fara badan in laysu ilbalaclaynayaa laga yaaba oo aan fooda la isgelin runtii. marka difaacaas aan ku jirnay iyo isu ilbalaclayntii waa ka baxnay. waxaan ka baxnay oo kale oon soconayn noocii neutralka ahaa ee shacabka iyo dowladduba hay-adaheeda kale ay ku socdeen oo ah dagaalka inay ku jiraan keliya ciidamada keliya, ama booliis ha ahaadaan ama military ha ahaadaan ama qaybaha kala duwan ama mas-uud ha ahaadaan, keligood inay dagaal ku jiraan. laakiin wasiiradu inaysan ku jirin, agaasimayaasha ku jirin, dowladdu ku jirin, oo inta la galo taas waxaan rabnaa inay bedelanto total. waana bedelantay xukuumadda wada ogtihi. oo xukuumaddu ayagaa dagaalka safka hore ku jira. mas-uuliyadda marka ciidanka booliiska
saarani waxay tahay shaqadoodii shaqo ka ballaaran oo ka duwan oo ka adag ayay hayaan. taasaana laga rabaa hadda inay qabtaan. boolisku shaqooyin buu leeyahay, waa la yaqaanaa. crimeka ula dirira waa la yaqaanaa, sida u dhaqmo waa la yaqaanaa. laakiin waxaan rabnaa rarka ku ka culus inaa saar. waxaan idinku bishaaraynayaa tii hore waa kaa idin sheegay keligiin baad ku haydeen. hadda waxaa idinla socdo oo aan xukuumadda mas-uuliyaddeeda tahay shacabku inu idinla socdo. taas annagaa ka shaqeynayna. waxaa kaloo laydinka rabaa oo muhiim ah kii gudaha magaalada oo midkaan hadda rabo inaan aada runtii aan focuska u saarna. nimankii waa ogtihiin dagaal culus baa lagula jiraa, waa soo jabeen, dhib badan baa haysta. waxaan rabnaa magaaladan in la hurgufo. soo horta dharka lama hurgufo, magaalada waa in la hurgufaa. in la hurgufo oo cayayaan ka daataan, wax oo dhan daataan banaanka lasoo dhigaa qaba. waxaan rabnaa muddo kooban in jidadka xiran oo dhan la qaado oo la furo jidadka. waxaan rabnaa muddo kooban magaalada in dadku meeshay rabaan ay degi karaan.